kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaasheenna qiimaha badan. warbixinteenna maanta oo xasaasi ah waxaynu ku soo qaadan doonaa wararkii u dambeeyey ee dagaalka u dhexeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland oo shalay aynu sheegnay in hogaamiyaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam uu dagaalkaas siirigiisa afuufay oo uu si rasmi ah u bilowday kadib markii maamulka Jubbaland ay weerar culus oo siyaasadeed ay ku qaadeen xukuumadda dan qaran iyo baarlamaanka federaalka Soomaaliya. dagaalkan oo laba jiha ahaa ayaa isaguna ilaa iyo hadda si xawli ah u socda. haddaba wararkii ugu dambeeyey ee dagaalkan faraha looga guban doono ee u dhexeeya labadii madaxweyne ee shalay saaxiibka ahaa waa madaxweyne xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya iyo madaxweynaha maamulka Jubbaland iyo dhinaca kale hogaamiyaha xukuumadda dan qaran ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre iyo dhinaca kale hogaamiyaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam. dabcan labadan mas'uul laftooda waxa ay ahaayeen laba mas'uul oo isku dhinaca. Xamse Cabdi Barre ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa ahaa ama ka mid ahaa taageerayaashii iyo gacan-yarayaashii madaxweyne Axmed Maxamed Islaam u fududeeyey muddaxileedkan hadda ka dhammaaday inuu isku caarisho, iyadoo taasina ay sababtay abaalkeeda in markaasi madaxweyne Axmed Madoobe kadib markii madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu ku guulaystay xilka madaxweynaha ee madaxweynuhu markaasi Xamse Cabdi Barre oo isaga laftiisa ay isku xisbi ahaayeen uu gartay inuu ra'iisul wasaare ka dhigo in Axmed Madoobe laftiisa oo taas maslaxadiisa ka dhex arkay uu isaguna ku taageeray in uu Axmed yahay ra'iisul wasaaraha uu wato Xamse Cabdi Barre. si kastaba markan ha ahaatee saaxiibkii weynaa ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud ahaana saaxiibkii ama gacan-yarihii Axmed Maxamed Islaam ayaa iyadana wuxuu dagaal ka dhex qarxay hogaamiye Axmed Maxamed Islaam. markan ayay siyaasaddu u muuqataa hogaamiyihii u fududeeyey Axmed Maxamed Islaam muddaxileedkan hadda ka dhammaaday inuu isagu duulaan ku yahay hadda muddaxileedka uu haysto ra'iisul wasaaraha qaranka Soomaaliyeed Xamse Cabdi Barre. balse sidaynu hore u sheegnay siyaasadduba abaal iyo saaxiibtinimo midna ma laha. haddaba dagaalkan labada dhinac ah ee maamulka Jubbaland ay ku qaadeen dowladda federaalka Soomaaliya ayaa wararkii u dambeeyey waxa ay sheegayaan in ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre uu ka falcelinaya weerarkii iyo duulaankii kaga yimid dhinacaas iyo maamulka Jubbaland inuu saacado gudahood ku magacaabay labadii wasiir ee xilka iska casilay wasiiru dowlihii madaxtooyada ee qorshaynta iyo wasiir ku-xigeenkii. labadaas mas'uul ayaa ra'iisul wasaaruhu maanta uu saacado gudahood ku magacaabay isagoo markaan u magacaabay laba mas'uul oo iyaguna miisaan culus ku lahaa siyaasadda Soomaaliya iyo Jubbaland, tan oo Xamse laftiisa u ah fursad in laba mas'uul oo taageerayaashiisa ah ay ku soo biiraan xukuumadda dan qaran, maadaama mas'uuliyiintan hadda xilka ka tegey oo uu ogaa inay yihiin gacan-yarayaasha Axmed Maxamed Islaam khatarna ku ahaa ay culayskii hadda ka fududeeyeen. isla dhinaca kale sida aad maqlaysaan waxaa iyadana uu loolan xooggan uu ka socdaa gudaha magaalada Kismaayo oo iyaduna noqon doontaa halka ay isku xareeri doonaan mas'uuliyiintan uu dagaalka culus ee siyaasadeed iyo mid la filayo oo militariba uu dhex mari doono. magaalada Kismaayo ayaa waxaa ka jira dhaqdhaqaaqyo culus oo kala duwan
qaar ka tirsan taageerayaasha maamulka Jubbaland oo ay dabada ka riixayaan isla maamulkaas ayaa isugu soo baxay magaalada Kismaayo iyaga oo markan taageeraya hogaamiyahooda qaariga ah Sayid Axmed Maxamed Islaam waa sida ay aaminsan yihiin waxa ay ku dhawaaqayaan Axmedow cadowga ha jabo Jubbaland kuma joogna il yeeraya kale tani waxay ka mid tahay dowlatuska maamulka Jubbaland ay ka dhigayaan gudaha magaalada Kismaayo iyaga oo adeegsanaya taageerayaashooda halkaas ku sugan dhaqdhaqaaqyada waaweyn ee iyaguna ka socda magaalada Kismaayo ayaa waxaa ka mid ah dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed oo dowladda federaalka Soomaaliya ay dabada ka riixayso isla markaana sida la filayo uu hormuud ka yahay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya iyo xukuumaddiisa dan qaran Xamse Cabdi Barre dhaqdhaqaaqyadaas ayaa iyaguna ka socda gudaha magaalada Kismaayo waxaa maalmihii la soo dhaafay ku soo qulqulayay oo soo gaaray magaalada Kismaayo musharaxiin miisaan culus ku leh Jubbaland musharaxiintan oo ay ka mid yihiin Sheekh Daahir Axmed Cabdullaahi iyo Axmed Cali Raage iyo musharaxiin kale oo iyagana la filayo dhowaan inay soo gaari doonaan caasimadda Jubbaland oo miisaan culus ku leh siyaasadda Jubbaland dhammaan mucaaradkii maamulka Jubbaland ee maalmahanba ay siyaasaddu ku liicsanay ayaa iyaguna u muuqda inay markan heleen fursad kale oo ay kula loolami karaan hogaamiyaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam waxaana xusid mudan maalmihii iyo labadii sano ee la soo dhaafay in hogaamiyaha Axmed Maxamed Islaam isagoo taageero ka helaya saaxiibkiisan hadda uu dhabarka ka jabiyey Xasan Sheekh Maxamuud iyo xukuumadda dan qaran in markaasi ay u suura gashay in gebi ahaanba Axmed Maxamed Islaam uu Jubbaland ka sifeeyo urugyadii mucaaradka ku ah haddii ay noqon lahayd kooxihii mucaaradka fashilmay ahaa ee gobolka Gedo kuwaas oo shacabka Jubbaland intooda badan ay aaminsan yihiin in Axmed Madoobe xukunka uu sii joogo ay qayb ka tahay siyaasiyiinta fashilan ee gobolka Gedo iyo dhinaca kale siyaasiyiintii ka soo jeeday Jubbada Dhexe iyo Jubbada Hoose oo iyagu marnaba aan taageero ka helin dowladda dhexe ee Soomaaliya isla markaana uu cadaadis kaga imanayay dalkaasi Kenya intaasna ay u dheerayd cadaadiska tarxiilka caga juglaynta maamulka Jubbaland hadda ayay u muuqataa mucaaradkaasina inay fursad u heleen kadib markii ay kala xarig furteen hogaamiyaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam labadiisii saaxiibka ee qaariga ahaa ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ra'iisul wasaaraha xukuumadda dan qaran iyo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud haddaba musharaxiintan miisaanka culus ku leh siyaasadda Jubbaland Sheekh Daahir Axmed Cabdullaahi iyo musharax Cabdi Cali Raage oo iyaguna ka hadlay gudaha magaalada Kismaayo ayaa waxay sheegeen oo ay ku dhawaaqeen inay yihiin markan musharaxiin rasmi ah oo u taagan xilka madaxweynenimo ee maamulka Jubbaland labadan siyaasi ee musharaxiinta miisaanka culus ku lahaa Jubbaland loolanadii doorasho ee hore ayaa waxa markaan ay si cad u shaaciyeen oo si buuxda oo bareer ah ay u taageereen qorshayaasha ay wadato dowladda federaalka Soomaaliya ee dalka lagu gaadhsiinayo doorasho qof iyo cod iyagoo musharaxiintan ku eedeeyey hogaamiyaha Jubbaland in isagu uu ka baxay dhammaan heshiisyadii uu la galay golaha wadatashiga qaranka iyo dowladda federaalka Soomaaliya suuliyiintan waxay Axmed Madoobe ku eedeeyeen in isaga kaliya ay u muuqato in kursigaasi uu xukunkiisa sii haysto ayna tahay sababta uu u dhabar jabinayo mar walba ama caqabadda ugu yahay dhismaha qarannimada geedi socodka dowladnimada Soomaaliya iyo in dhinaca kale maamulka Jubbaland ay ka dhacdo doorasho xor ah oo ay shacabka Jubbaland fursad u helaan in mar uun iyagu ay soo doortaan hogaamin lahaa maamulka Jubbaland haddaba dad badan oo u dhun daloola siyaasadda Jubbaland iyo hogaamiye Axmed Maxamed Islaam qofka uu yahay waxa ay markaan isweydiinayaan musharaxiintan ku soo qulqulaya magaalada Kismaayo ee markaasi doonaya inay Axmed Maxamed Islaam loolan adag la galaan
iyaga oo hadda caddaystay inay taageero buuxda u hayaan ra'iisul wasaaraha qaranka Xamse Cabdi Barre iyo madaxweynaha Soomaaliya iyo maamul goboleedada ay isku xulufada yihiin isla markaana doonaya markaan inay xilka Jubbaland ay si xor ah ugu tartamaan. waxay kala kulmi doonaan hogaamiyaha mayalka adag aan wadnihiisu galowda aqoonin, gacan bir ah ku qabta hogaamiye kasta oo mucaarad ah oo isku daya inuu dhaqdhaqaaq ka sameeyo gudaha magaalada Kismaayo iyo deegaanada maamulkiisu uu ka tari. dadka la socda xaaladda Jubbaland waxaa markan maskaxdooda ku dhacaysa Sheekh Daahir Axmed Cabdullaahi Axmed Cali Raage oo markaan taageeray Xamse Cabdi Barre iyo madaxtooyada filla Soomaali. waxay la kulmi doonaan ciqaabtii ay mari jireen musharaxiintii iyo madaxdii hore ee isku dayay inay kula loolamaan xilka iyo awoodda hogaamiye Axmed Maxamed Islaam. ma la tarxiili doonaa oo magaalada Kismaayo ayaa laga caydhin doonaa. hogaamiye Axmed Maxamed Islaam waxa uu masaafurin doonaa magaalada Muqdisho, xabsiga loo taxaabi doonaa, amase sida ay dadka qaar ku eedeeyaan hogaamiyaha Axmed Maxamed Islaam iyo maamulkiisa hogaamiyayaashan iyo siyaasiyiintan qaab shirqool ah ma lagu dili doono. waxaa la ogyahay sida hore loo bartay inaanay Kismaayo suurtagal ka ahayn inuu ka soo muuqdo hogaamiye la loolami kara boqorka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam, ama hogaamiye inta uu caddaysto taageerada dowladda federaalka Soomaaliya oo uu dagaal ka dhaxeeyo maamulka Jubbaland inuu ku sii sugnaado magaalada Kismaayo. markan waxaa xiisare oo dadku isha ay ku hayaan hogaamiyihii awooddaas badan lahaa miyuu ilka beelay oo hadda ma fulin karo tallaabooyinkii uu horey u qaadi jiray. waxa soo socda dhammaan dhaqdhaqaaqyadii uu samayn jiray hogaamiyahaas oo ay ka mid ahaayeen kooxaha mucaaradka ee ka hor yimaada inay noqdaan kuwa la tarxiilo, kuwa xabsiga loo taxaabo, kuwa dacaayado lagaga furo meel kasta oo ay joogaan, iyo dhinaca kale in bal la diido oo la mamnuuco gebi ahaanba mas-uuliyiinta Soomaaliya inay cagaha soo dhigtaan magaalada Kismaayo iyo xarumaha ay ka taliyaan maamulka Jubbaland. arrimahaas oo dhan ayaa ay su'aalo badan ka taagan yihiin, balse hadda waxaa muuqata in halka loolanka culus uu ka socdo ay tahay gudaha magaalada Kismaayo oo markan ay ku loolamayaan xoogagii mucaaradka ahaa ee Jubbaland uu soo rogaal celiyey hogaamiyaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam iyo taageerayaashiisa oo aan soo xusnay inayba olole iyo dagaal iyo dhoolatus ka bilaabeen gudaha magaalada Kismaayo. ra'iisul wasaaraha xukuumadda dan qaran iyo dhinaca kale dowladda federaalka Soomaaliya oo iyaduna isu diyaarinaysa sidii ay duulaanada kaga imanaya maamulka Jubbaland ay uga hortagi lahaayeen, isla markaana ay taageero buuxda u siin lahaayeen dhammaan xoogaga mucaaradka ah ee Jubbaland si markaasi looga dhaqangeliyo Jubbaland qorshayaasha ay wadato dowladda federaalka Soomaaliya oo ay ugu horreyso doorasho qof iyo cod ah iyo in maamulka Jubbaland markaan lagu qasbo in ay u hoggaansamaan hannaanka geedi socodka ee dowladda federaalka Soomaaliya ee dowlad dhiska. si kastaba ha ahaatee dhinacyadan loolamay oo sidaynu sheegnay dagaalkoodu uu dhinacyo badan ka socdo ayaa waxaa haddana dagaalku uu hadda ka sii socdaa dhinacaas iyo xubnaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya. baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo dhowaan cod buuxa ku taageeray codsigii madaxweynaha, isla markaana isu diyaarinaya inay ka doodaan sharciga doorashooyinka qof iyo cod iyo guddiga doorashooyinka ee dowladda federaalku ay horgeyn doonto baarlamaanka Soomaaliya labadiisa aqal, ayaa dhinaca kale oo halkiisa ka sii socdaa weerarkii ay maamulka Jubbaland ku qaadeen dhinacaas iyo baarlamaanka Soomaaliya. xildhibaanadii u dhowaan Axmed Maxamed Islaam ka codsaday in ay Jubbaland ku soo xaroodaan si looga wada tashado xiriirka u dhexeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland iyo xaaladda guud ee dalka, ayaa iyaguna qayb ka mid ah oo ahaa gacanyarayaashii uu madaxweyne Axmed Maxamed Islaam uu gacantiisa ku soo xushay ay si buuxda u taageereen.
xildhibaanadan oo magaalada muqdisho shir jaraa'id ku qabtay ayaa sheegay in tiradoodu kor ay u dhaaftay 40 xildhibaan ayna ku sii jeedaan dhinacaas iyo magaalada Kismaayo. xildhibaanadani waxa ay sheegeen inay si buuxda u taageeri doonaan maamulka Jubbaland ee ka baxay shirkii golaha wadatashiga qaranka ayna ka soo horjeedsan doonaan qorshayaasha ay wadato dowladda federaalka Soomaaliya iyo isla baarlamaanka iyagu ay ka mid yihiin oo la filaya inay dhowaan cod aqlabiyada ku ansixin doonaan sharciyada doorashooyinka iyo guddiga doorashooyinka dalka. xildhibaanadan waxa ay carabka ku adkeeyeen iyaga oo aan fasax ka haysanin shir guddoonkooda inay tegi doonaan magaalada Kismaayo iyaga oo aqbalay codsigii ama baaqii madaxweynahooda Jubbaland. lama oga sida ay tan ku aqbali doonaan shir guddoonka baarlamaanka oo hadda sharciyadu haysta inaanay xildhibaanadu ka bixi karin caasimadda dalka maadaama ay aqbaleen codsigii madaxweynaha ee ahaa in aanay fasax gelin muddo bil ah ay shaqooyinkoodii sii wataan ayna ka doodaan arrimo muhiim u ah masiirka dalka sida uu madaxweynuhu codsigiisa ku sheegay. markaan shir guddoonku ma ogolaan doonaa xildhibaano la og yahay waxa ay uga baxayaan Muqdisho sababta ay u tegayaan Kismaayo oo ah in laga hor yimaado codsigii madaxweynaha iyo aqbalaadii codka aqlabiyada ay ku aqbaleen baarlamaanku inay jiri doonaan in xildhibaanadaas la fasaxo ay kuraastooda banneeyaan ayna noqdaan mucaarad markaasi kaba soo horjeeda go'aanadii la sheegay in iyagu cod aqlabiyad ah ku ansixiyeen. haddaba tallaabadan lafteeda ayaan la ogeyn iyaduna qaabka ay ku dhaqangeli doonto ama xildhibaanadani ay ku tegi doonaan magaalada Kismaayo. isla dhinaca kale haddiiba ay dhacdo oo ay tagaan halkaasi saamaynta iyo natiijada ka soo bixi karta tallaabadan ay qaadeen xildhibaanada. isla dhinaca kale wararku waxay sheegayaan in isla codsigaas madaxweynaha maamulka Jubbaland ay si xooggan ugu kala qaybsameen xildhibaanada ka soo jeeda maamulka Jubbaland. waxaa iyaguna jira xildhibaano kale oo markaan ka soo horjeestay gebi ahaanba codsiga madaxweynaha Jubbaland oo iyaguna ku dhawaaqay oo warbaahinta la hadlay inay taageersan yihiin go'aanadii ka soo baxay shirkii golaha wadatashiga qaranka iyo dowladda federaalka Soomaaliya iyo dhinaca kale codkii aqlabiyadda ahaa ee baarlamaanku ay ku aqbaleen codsigii madaxweynaha. xildhibaanadan ayaa iyaguna sheegay inaanay marna aqbali doonin qorshaha keligii tarisnimo ee maamulka uu hogaamiyo madaxweyne Axmed Maxamed Islaam. isla wararka dagaalka siyaasadeed ee u dhexeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland ayaynu ku dhex jirnaaye war ka soo baxay dhowaan maamulka Jubbaland ayaa waxaa lagu sheegay in madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam uu magaalada Kismaayo ku qaabilay wafdi dhexdhexaadiyayaal ah oo ka socday dowladda dalkaasi Kenya. isla markaana madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu ka codsaday inay ka shaqeeyaan sidii xal loogu heli lahaa khilaafka u dhexeeya maamulka Jubbaland iyo dowladda federaalka Soomaaliya. warkan ka soo baxay maamulka Jubbaland ayaa waxaa lagu sheegay wafdigan in uu hogaaminayo xogayihii hore ee fulinta IGAD Ambassador Maxbuub Macalin, ergigii hore ee IGAD u qaabilsanaa Soomaaliya Maxamed Cabdi Afey iyo senator hore ee ismaamulka Wajeer Cabdiraxmaan Culub. haddaba warkan dhowaan ka soo baxay maamulka Jubbaland oo aan ilaa iyo hadda dhinacyo kale xaqiijin haddii ay noqon lahayd dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladda Kenya ayaa qaabka uu qoran yahay uu yahay mid la yaab leh. arrimaha aad iyo aad loola yaabay warkan qoraalka ku jira ayaa ah in isla maamulka Jubbaland waa isla maamulkii uu loolanka iyo khilaafku ka dhexeeyey ay sheegayaan in madaxweynihii Soomaaliya uu markaasi u habar wacday dowladda Kenya si ay u dhexdhexaadiso maamulka Jubbaland oo haddana isla tallaabadaasi ay ka bilaabeen caasimadda maamulka Jubbaland. iyadoo haddaba aan warkan si rasmi ah loo xaqiijinin ayaa haddana waxaa jiray oo halkan aan idinku soo gudbinay
warar kale oo markaasi sheegay ama lagu sheegay in markii madaxweynaha Soomaaliya uu ku sugnaa caasimadda dalka Kenya ee Nairobi uu ka codsaday in madaxweynaha Kenya uu ku qanciyo hogaamiyaha Jubbaland oo waqtigaasi ka baxay shirkii golaha wadatashiga qaranka in uu shirka dib ugu soo laabto balse taasi ma ahayn in dowladda Soomaaliya ay ka codsatay dalka Kenya inay dhexdhexaadiyaan maamulka Jubbaland talaabadan oo gebi ahaanba ah mid markaasi ka soo horjeeda ama faragelin qaawan ku ah hannaanka dowladnimo ee dalka Soomaaliya haddii marka warkan sida ay Jubbaland u dhigtay uu jiro waxa ay noqonaysaa mar kale dhulbaaxo ku dhacday siyaasadda dowladda federaalka Soomaaliya ee arrimaha dibadda iyo arrimaha gudaha oo markii horeba aan caga badan ku taagnay haddii dowladda federaalka Soomaaliya ay hadda inta ay awood u yeelan weyday khilaafaadka gudaheeda ka jira oo hogaamiye ka mid ah hogaamiyeyaashii ka baxay shirkeeda ay dhexdhexaadinayaan dal kale iyadoo dhinaca kale ay xusid mudan tahay in dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyada kale ay ku heshiiyeen in dalka ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah madaxweynuhu baarlamaanka horgeeyey baarlamaanka la filaya inuu cod aqlabiyada ku ansixiyo waxaa dad badan ay isweydiinayaan sidee ayay tallaabooyinkaasi ula jaan qaadi karaan warkan hadda ka soo baxay maamulka Jubbaland dabcan waxaa la filayaa in dowladda federaalka Soomaaliya lafteedu ay ka jawaabi doonto oo halkaas lagu ogaan doono isla xaqiiqada warkan ka soo baxay maamulka Jubbaland sidoo kale waxaa la filayaa dowladda Kenya oo maamulka Jubbaland ay sheegeen in iyadu hadda dhexdhexaadiyo u noqon doonto dowladda federaalka Soomaaliya wixii warar ah ee ka soo kordha balse gebi ahaanba waxaa aad iyo aad wax loola yaaba ah inay waqtiganba suurtagal noqon karto in ergo ka socota Kenya ay dhexdhexaadinayso hogaamiyaha maamulka Jubbaland iyo dowladda federaalka Soomaaliya haddiiba se tani ayna markaasi mustaxiil ka ahayn siyaasadda Soomaaliya ooba aynu ognahay inay hore u jiri jirtay horena u dhacday ka dhinaca waaqica laga fiiri oo horeba ay u dhacday isku dhacii Xasan Sheekh Maxamuud iyo dhinaca kale hogaamiye Axmed Maxamed Islaam ay dowladda Itoobiya ku dhexdhexaadisay Addis Ababa oo mar kale ay taasi soo noqotay war kalena uu sidaa ku xaqiiqoobo sida maamulka Jubbaland ay sheegeen tani waxay noqon doontaa bilowga mar kale iyo guusha hogaamiyaha Jubbaland oo gebi ahaanba ka guulaysan doona maamulka filla Soomaaliya balse haddana haddii aynu dhinaca diblomaasiyadda ka istaagno warkan ka soo baxay maamulka Jubbaland oo markaan aynu ka soo qaadno inuu yahay war xaqiiqo ah oo dhinacyada Kenya iyo Soomaaliya waa dowladda Soomaaliya ay si rasmi ah u xaqiijiyaan jiritaanka warkan ka soo yeeray maamulka Jubbaland markan dhinaca aynu ka fiirinayno waxa ay tahay in tallaabadani labada dhinac mid kasta ay fursad uu midka kale kaga guulaysto ay noqon karto aynu ku bilownay haddii aynu ka fiirino dhinaca dowladda federaalka Soomaaliya waxa ay tallaabadan u noqon kartaa cadaadis kale oo ay mar kale saari karaan hogaamiyaha maamulka Jubbaland iyadoo diblomaasi ahaan wafdigan haddiiba uu yahay wafdi rasmi ah ay dowladda federaalka Soomaaliya qaabili doonaan go'aanada dowladda ay hordhigi doonaan iyo in hogaamiyaha Jubbaland uu ku soo biiro geedi socodka dowlad dhiska dalka Soomaaliya ee dhaqaaqay oo aan marna gorgortan laga gelin waxaana markaa soo baxaysa dhinaca kale haddii fariintan loo gudbiyo hogaamiyaha maamulka Jubbaland inuu ka boodi doono mar kale sidii horeyba loogu sheegay inuu ku gacan sayray isla hogaamiyaha dalka Kenya William Ruto oo la sheegay waqtigaa inuu ka codsaday Axmed Maxamed Islaam inuu markaa shirka dib ugu laabto mar kale ayaa filla Soomaaliya markan ay ku guulaysan doontaa in midka jaho iyo jidiidka uu yahay hogaamiye Axmed Maxamed Islaam sababta oo ah dhexdhexaadiyaashan hadda awood uma haystaan inay dhinaca kale dowladda federaalka ku qanciyaan inay gebi ahaanba ka noqoto qorshayaasheeda hadda mira dhalka u noqday ee ay bannaanka keentay ee hadda hor yaalla inay ansixiyaan
xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya. haddaba haddii ay taas tahay sida hogaamiyaha Axmed Madoobe oo isaga laftiisu hadda wafdigan ay u muuqato inuu is-xigsiinayo oo uu guur ka dhiganayo ayna filla Soomaaliya uga keenaynin inay go'aankeeda ka soo dabacdo. sidoo kale hogaamiyaha Axmed Maxamed Islaamna aan la filaynin inuu go'aankiisii doorasho dadban oo uu isku caanashubo iyo inteennadii dib loogu laabto aanu marnaba ka laaban doonin. tallaabadan ayaa markan waxa ay fursad iyo guul u noqonaysaa dowladda federaalka Soomaaliya haddii go'aankeedan ay ku adkaysato ayna fariin kale uun u dhiibto isla wafdigaas haddiiba uu soo gaadho caasimadda dalka. waaba haddii warkan hadda Jubbaland ay soo saartay uu yahay mid xaqiiqada ku saraysa. sida jihada kale ee wafdigani uu hogaamiye Axmed Maxamed Islaam guusha ugu noqon karo ayaa iyaduna ah in hogaamiye Axmed Maxamed Islaam uu u adeegsado wafdigan iyo dhaqdhaqaaqyada Kenya in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud sidaynu hore u sheegnay waqtiga laga lumiyo wada hadallo jiitama macno badan aan lahayn iyo in dowladda lagu qanciyo inayna go'aano adag qaadan marin habaabin markaasi lagu mashquuliyo dowladda federaalka Soomaaliya taas oo ahayd durbaaxo hore ugu dhacday Xasan Sheekh Maxamuud amaba se hogaamiyaha Axmed Maxamed Islaam oo ku daraynaya in Xasan Sheekh Maxamuud uu tanaasulaad sameeyo markaan sidii markii horeba uu sameeyey waqtigii ay isku dhaceen ee dowladda Itoobiya ay soo faragelisay khilaafkooda. arrimahaas oo dhan haddii ay dhacaan oo dhinaca Soomaaliya uu ka rajaynayo hogaamiye Axmed Maxamed Islaam in maamulka Soomaaliya siyaasaddiisu dabacsan tahay ay u suurtageli karto inuu ku mashquuliyo dhexdhexaadinta dalka Kenya. tanna sidaynu sheegnay waxay dhabarjab ku noqon kartaa xukuumadda filla Soomaaliya oo iyadana markaasi noqon doontaa mid aakhirka gacanta u gasha siyaasadda hogaamiyaha Axmed Jubbaland Axmed Maxamed Islaam. balse waxaynu isha ku hayn doonaa loolankan dhaqdhaqaaqyadan siyaasadeed iyo wixii ka soo kordhaba halkan ayaan idinku soo gudbin doonaa. balse wax yar haddii aynu ka iftiimino warkan ka soo baxay dhinaca maamulka Jubbaland ujeeddada uu ka leeyahay madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam waxa ay tahay sida aan la soconno dowladda Soomaaliya inta badan iyada go'aanada masiirkeeda mid qaadata ma aha. inta badan hogaamiyaasha Soomaalidu marka ay isku dhacaan xalkoodu wuxuu ka yimaadaa dhinacyada dibadda waxaana loolan kasta oo saamilaydan siyaasadeed ama sidanlaydan siyaasadeed ee masiirka shacabka Soomaaliyeed u afduuban yahay marka ay iyagu gudahooda xal ka waayaan oo ay isku qabsadaan xukunka iyo dana dhaqaale oo iyaga u gaar ah ugu dambaynta heshiiskooda iyo isfahamkooda wuxuu ku soo dhammaadaa faragelinta beesha caalamka iyo in ay teendhadii wada tagaan ama wakiilada qaramada midoobay ay iyagu xal ka sugaan ama dalalka dariska la ah Soomaaliya ee ku milmay siyaasadda dalka Soomaaliya sida dalka Kenya oo kale iyo Itoobiya. haddaba Axmed Madoobe markaan wuxuu rabaa inuu halkaas xaaladda mar kale ku celiyo sababta oo ah hogaamiyahan Jubbaland Axmed Maxamed Islaam si uu kursigiisa u sii joogo waxa uu dhowr goor ku guuleystay intaasi uu damaciisa uu ka fushado. waxaana xusid mudan isku dhacii horreeyey ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo dhinaca kale hogaamiyahan Jubbaland Axmed Maxamed Islaam waxa uu ka guuleystay hogaamiye Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynihii waqtigaas markii uu murankoodii u raray ama se uu u habar wacday dhinacaas iyo dowladdii Itoobiya oo waqtigaas ay hogaaminaysay kooxdii TPLF ee ay gacan saarka lahaayeen hogaamiyaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam iyadoo halkaas lagu soo heshiisiiyey madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo Axmed Maxamed Islaam oo khilaaf iyo loolan uu ka dhaxeeyey ay iyagu gudahooda xallin waayeen ka Soomaali ahaan balse marka la sheegay in xalkii iyagu ay ku guuldaraysteen uu ka yimid inay dowladda Itoobiya u keento oo iyagu qaab Itoobiya ay u arkaysay danaheedii ay ku heshiisiiso. mar kale Axmed Madoobe markii uu xaalku ku adkaaday waqtigii loolanka iyo dagaalka uu kula jiray
madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo axmed madoobe oo sidan oo kale hogaaminayey isbahaysigii u ololeynayey doorasho dadban waxaa markaan ay dhinacyadaasi dhammaantood muhiim bideen in xaalku uu ka baxo faraha soomaalida oo dhinacyo kale ay soo farageliyaan iyadoo ugu dambayntii xalka loo raadiyey dhinacaas iyo teennadii iyo xarunta xalane taas oo iyadana ugu dambayntii keentay in mar kale dalku uu dib ugu laabto doorashadii dadbanayd oo ka sii maqaam hoosaysa oo markaas noqotay doorasho xulasho ah oo hogaamiyayaasha maamuladu ay soo xusheen shakhsiyaadka hadda ku mitala baarlamaanka soomaaliya haddaba axmed madoobe oo hadda u sii socda jihadaas ayaa wuxuu mar kale loolankiisii ka bilaabay in xaaladda iyo khilaafka u dhexeeya isaga iyo dowladda federaalka soomaaliya ay mar kale ka baxdo gacmaha soomaalida isagoo markan haddana u doortay mar kale si xaaladda loo sii fogeeyo in doorkan ay ciyaarto sidii isaga sida ay ugu badiso uu uga dhex heli lahaa ama dabaciisa inuu mutaxilaad kale ku soo laabto uu u heli lahaa uu markan doorbidayo in ay bilaabato dhexdhexaadin ka timaada dhinaca dalkaas iyo Kenya iyo wakiilada hadda uu sheegay oo uu dareemaya axmed madoobe inay ku gacan siin doonaan dabaciisa ah in mar kale uu dalku dib ugu laabto doorasho dadban isla markaana ay ku taageeraan dowladaha Kenya, Ethiopia iyo beesha caalamku mar kale qorshihiisaas in lagu taageero isaga iyo xulufadiisa haddaba tallaabada ay hadda Jubbaland ay warkaan u daraynayaan iyo dhexdhexaadinta ayaa taas ah maamulka Jubbaland oo isu diyaarinaya dagaal iyo weerar ay ku qaadaan dowladda federaalka Soomaaliya musharaxiinta iyo dhammaan dhinacyada ka soo horjeeda maamulkaas ayaa waxay ku dhawaaqeen in ay ciidankooda heegan geliyeen isla markaana maamulkaasi waxa ay soo saareen amarro culus oo keligii talisnimo oo la duldhigay musharaxiinta qabaa'ilka iyo dhinacyada kala duwan ee bulshada iyo shacabka Jubbaland waxaa awaamirtaas qalafsan ee la duldhigay shacabka Jubbaland aynu wax yar dhageysano doorashooyinka dowladda Jubbaland ayaa waxaa la farayaa dhammaan ciidamada qalabka sida ee Jubbaland iyo kuwa xoogga dalka Soomaaliyeed qodobada hoos ku xusan dhammaan ciidamada qalabka sida ee Jubbaland iyo kuwa xoogga dalka waxaa la farayaa in ay galaan heegan buuxa oo lagu xaqiijinayo amniga dhammaan deegaanada dowladda Jubbaland sidoo kale dhammaan ciidamada qalabka sida waxaa la farayaa in aysan ku milmin siyaasadda oo ay ku ekaadaan xeryahooda iyo goobahooda shaqo waxaa mamnuuc ah in askari hubaysan oo aan waajib shaqo ku jirin lagu arko goob aan ahayn goobtiisa shaqo dhammaan musharaxiinta iyo daneeyayaasha ka qaybgalaya doorashada dowladda Jubbaland waxaa lagu wargelinayaa in ammaankooda ay sugayaan ciidamada booliiska dowladda Jubbaland sidaa darteed waa in ay la xiriiraan taliska ciidanka booliiska Jubbaland si loo siiyo ciidamo sharci ah oo suga ammaankooda ammaanka deegaanada Jubbaland waa mid la isku halayn karo waxaa mamnuuc ah in la abuuro ciidamo beeleedyo u abaabulan hab qabiil oo lagu khalkhalgeliyo ammaanka iyo nabadda ka jirta dhammaan deegaanada dowladda Jubbaland ugu dambeyn cid kasta oo ka qayb qaadata falal amni darro iyo kuwa argagixiso ama u hoggaansami weydo qodobada kor ku xusan waxaa laga qaadayaa tallaabo sharciga waafaqsan